kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda. Qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Itoobiya hub u qayminayso maamul goboleedyada qaramada midoobay war ka soo saartay iyo fadeexad ka dhalatay arrintaas. Meydadka dad la helay qaar wali lagu laayay fatahaadda uu sameeyay wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne. Madaxtooyada Soomaaliya oo ka badbaaday qorshe halis ah u degeen isbahaysiga mucaaradka iyo basaaskii soo gudbiyay xogta halkii uu ku sugnaa Abuukar al-Baghdadi oo la ogaaday. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan wararkeena saaxiibayaal daawadayaal. aan ku bilowno guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu dhowaan magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gurmad xoogan ka wado magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. weli waxaa lagu laayahay fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne iyo doontii rogmatay dad fara badan oo isugu jiray kuwo ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne. ilaa 11 ruux ayaa la xaqiijiyay in lagu laayahay nolol iyo geeri kuwaas oo badankoodii saarnaa doontii shalay rogmatay, waxaana la helay magacyada dadka weli la laayahay hase yeeshee baadigoobka lagu jiro. magacyada dadka lagu laayahay fatahaadda uu sameeyay webiga Shabeelle ee Beledweyne waxaa ka mid ah Sharmaarke Khaliif Xasan, xogayihii dowladda hoose ee Beledweyne, Dahaba Axmed Xasan, la taliyihii sare arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, Khaliif Xasan agaasimihii xafiiska duqa Beledweyne, Deeqow Cabdi Cariif agaasimihii waaxda nadaafadda dowladda hoose ee Beledweyne, Cabdi Keenaan Cabdi Kuus darawal duqa magaalada Beledweyne, Shariif Xasan Ganey Shariif Carabey ganacsade laakiin meydkiisa ayaa saakay la helay. Macalin Nuur oo ahaa nin ganacsade ah, Axmed Cali Cusmaan Axmed Ganey ganacsade si weyn looga yaqaanay Beledweyne, Muscab Xuseen oo ahaa darawalkii waday doonidii rogmatay, iyo wiil yar oo iskuulka Sheekh Maxamed macalin ka ahaa fasalka afraad ee dugsiga sare kaasoo magaciisa aan weli la helin. qaybihii hore ee wararka jariiradda ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka badbaaday qorshe halis ah ay u degeen isbahaysiga mucaaradka ah. Filla Soomaaliya ayaa ogaatay in siyaasiyiinta mucaaradka dowladda ay qorsheynayaan inay isbahaysi la noqdaan ahlu sunna kuna garab siiyaan sidii ay ugu soo bixi lahayd doorashada Galmudug. dowladda oo diidan in ay isu soo dhawaadaan mucaaradkii ahlu sunnada gobolada dhexe ayaa qayb ka ah dareenka xilligan ku dhashay dowladda. ilo waraadiye ayaa sheegaya inaanay ahlu sunna noqon sidii loo maleynayay, islamarkaasna ay dowladdu garowsatay in aanan looga adkaan karin askar diyaarado looga daabulay magaalada Muqdisho laguna geeyo Dhuusamareeb. waxaana la leeyahay dowladdu way dareensan tahay in aanu xalku xabad ku jirin. ilo muhiim ayaa sheegaya in Filla Soomaaliya ay durbaba la xiriirtay madaxa ahlu sunnada Galmudug ayna u sheegtay in maalmaha soo socda uu soo gaari doono ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre si loo soo afjaro khilaafka jira. khilaafka labada dhinac oo toddobaadyadii lasoo dhaafay soo jiitamayay ayaa ka dhashay guddiga farsamada dhismaha Galmudug oo 8 bishan ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. ahlu sunna oo ka hadashay 12 bishan ayaa sheegtay in magacaabistii guddiga uu hareer marsan yahay heshiiskii ay labada dhinac wada gaareen bilo ka hor. ahlu sunna ayaa ka carootay iyadoo xubnaha guddiga ay u badan yihiin safka dowladda, waxayna toddobaadkii hore magacawday guddiga doorashooyinka Galmudug iyo xalinta khilaafaadka, iyadoo dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba tustay galaangalka ay u leedahay in ay maamul cusub u soo dhisi karto dadka reer Galmudug. si kastaba ha ahaatee ahlu sunnada Galmudug ayaa markasta diyaar u ah inay dowladda kala hadasho wax kasta oo ku aadan arrimaha siyaasadda haddii aanu gacan maroojis jirin. qaybihii dhexe ee wararka warbaahinta jariiradda ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. basaaskii soo gudbiyay xogta halkii uu ku sugnaa hogaamiyihii ISIS ee dhowaan Mareykanka dilay Abuukar al-Baghdadi ayaa haatan la ogaaday. sida ay sheegayaan ilo waraadiyo warbaahineed, shaqsigii sirdoonka u soo bandhigay halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha ururka Daacish ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Cali Sajid. Maxamed ayaa gacan weyn ka geystay in ciidamada Mareykanka ay ogaadaan halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha ururka isku magacaabay khilaafada Islaamka Abuubakar al-Baghdadi. Sajid ayaa lagu waramayaa inuu hogaamiye Baghdadi u adeegi jiray sidii saaxiibka aad ugu dhow
isagoona xogta halka uu ku sugan yahay la wadaagay sirdoonka dalka Mareykanka iyo unugyada gudaha dalka Ciraaq. Waxaa kale oo lasoo warinayaa in ninkaas uu sirdoonka Ciraaq fariin email ah ugu kashifay halka rasmiga ah ee xilligaas uu ku sugnaa hogaamiyaha Abu Bakr al-Baghdadi. Xogaha ayaa waxaa kale oo ay sheegayaan in Baghdadi uu ku safri jiray inta u dhaxaysa Suuriya iyo xadka Ciraaq, iyadoo ay weheliyaan 5 qof oo ilaaladiisa ah, isla markaasna uu aad ugu kalsoonaa. Dhinaca kale, wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa isaguna baahiyay in Baghdadi la helay goobta uu ku sugnaa kadib markii gacanta lagu soo dhigay fariin qaadaha gaarka u ahaa hogaamiyaha la dilay. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qabashada mid ka mid ah xaasaskiisa Baghdadi iyo waraysigii lala yeeshay sanadkii hore ay fududeysay howlgalkii ka dhanka ahaa Baghdadi. New York Times ayaa waxa uu intaasi raaciyay waxaa si dhow ula shaqeynayay howlgalkaas ciidamada Mareykanka, kuwa sirdoonka Ciraaq iyo Kurdiyiinta si loo helo Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi ayaa inta badan markuu safrayo xiran jiray suunka waxyaabaha qarxa ah, taas oo la sheegayo inuu uga gol lahaa in gacanta lagu dhigin isaga oo nool haddii lasoo weeraro. Baghdadi ayaa lagu waramayaa in cabsi baahsan soo food saartay, isla markaasna uu waqti kasta filan jiray dilkiisa inta uusan isqarxin ka hor markii ay isku dayeen ciidamada Mareykanka inay u dhowaadaan. Waxaa kale oo la sheegay in goobta uu Baghdadi isku qarxiyay lagu dilay ilaa 10 qof oo ka mid ahaa ilaaladiisa, inkastoo la sheegay inay badbaadeen 2 cunug oo u dhalay ninkii lahaa guriga ay ku sugnaayeen xubnaha la weeraray. Qaybihii dambe ee wararka jariirada ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. Dowladda Itoobiya ayaa la sheegayaa inay hub u qaybisay maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. Guddiga khibrada kooxda qaramada midoobay ee dabagalka Soomaaliya UN Monitoring Group ayaa shaaca ka qaaday in maamul goboleedyada Soomaaliya ee dalka Itoobiya ka heleen hub sharci darro ah, xilli Soomaaliya ay weli qayb ahaan saaran tahay xayiraad hub. Warbixinta guddiga ee sanadkan 2019 oo ay si gaar ah u heshay warbaahinta jariirada media ayaa shaaca ka qaaday in guddiga uu helay dukumiintiyo caddaynaya in shirkadda Metals and Engineering Corporation oo ay leedahay dowladda Itoobiya ay hub iyo rasaas badan siisay dhammaan maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. Guddiga ayaa sheegay arrintan aysan ahayn sanadkan oo kale, balse ay soo socotay 10kii sano ee tegay. Guddiga ayaa sheegay in inkastoo jumladda 11aad ee qaraarka 2111 ee dalalka caalamka u oggolaanayso in ay hub siin karaan hay-adaha amniga Soomaaliya ee ka baxsan dowladda federaalk Soomaaliya, haddana ay qasab tahay in marka hore ay oggolaansho ka helaan guddiga. Dowladda Itoobiya marnaba ma weydiisan oggolaansho, ayay tiri warbixintan. Dhinaca kale, guddiga ayaa ku ammaanay dowladda Soomaaliya inay inta badan u hoggaansantay shuruudihii qayb ahaan looga qaaday xayiraadda hubka, inkasta oo ay jirto marar ay ku guuldareysatay. 5 ka mid ah 7 goor ay dowladda guddiga soo ogeysisay hub ay keensanayso waxay buuxiyeen shuruudihii golaha ammaanka, ayaa lagu yiri warbixinta guddiga oo ay aragtay jariirada media. Guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal, waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen jariirada media. Waxaa naga xasuusinaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sar channelkeena si aad u hesho wararkii